السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ودنيا فيك السود هذا waxaan halkan ku duubaynaa insha Allah cashirkii aad soo codsateen ee ahaa nooshinka qaabka loo sameysto A to Z insha Allah waxaan isku dayayaa inaan fududeeyo qaabka ugu macquulsan aan insha Allah idinku soo gudbiyo si idinkana u fahantaan wixiina u habeystaan dadka English ku adeeg yahay insha Allah waxaan rajeynayaa inay si fiican uga faa'iidi doonaan kowda ugu horeysa waxaan ka bilaabaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan soo dejinaynaa kow abka inaad soo degsatid waaye abka markaad soo dejisid kadib waan hoos insha Allah galeynaa waxaa ku qoraysaa notion app notion ama notion template download waa dhigi kartaa notion download bas hadaad iskaga qortid xataa waa heli kartaa waxaa ku dhufanaysaa midka ugu horeeyo calaamadiisa waa taas madowda calaamadaas madowda n ay ku qoran tahay calaamadaas oo ku garanaysaa in notionka asaga kii saxda uu yahay kadib wuxuu leeyahay windows iyo mac haddii aad isticmaashid window oo macnaha computerada hadaa isticmaashid waa window waa dooranaysaa haddaa apple isticmaashidna mac aad dooranaysaa kadib window waa ku dhufanaynaa waa aragtaan wuu soo degayaa markii uu dhameeyo kadib install ayaa dhahanaysaa kadib uu kugu soo degayaa kadib waxaa ku arkaysaa haddaan share gareyno desktopka anaga almost uu noogu jiraa marka desktopka inaan share gareynayna saa u aragtaan waxaan filayaa inaan aragtaan desktopka inaan share gareynay waa kaasaa halkaas noo saaran yahay haddaa aragtaan oo kaas aan wadwado nooshinka anagu noo diyaarsan yahay nooshinka markuu kuu soo dego kadib oo halkaas ku imaado waxaa sameynaysaa waxaa furanaysaa nooshinka soo furaysaa nooshinka markaa furtid nooshinka furaysaa waa aragtaan nooshinka waa empty wax ku jira malaha in wixii dhan aad sameysid oo kolba mid aad sameysid waxaan filayaa inaa aragtaan nooshinkeena waa nooshin cusub wax xog kuma jirto kayga goonida ahaa waan ka saaray gmailkaas insha Allah marka waa soo gashan doonaa laakiin si aad idinku fahantiin oo wax uu idinku fududaado marka nooshinka markuu cusub yahay saan waaye marka waxaan sameynaynaa in mid kasta hadda kadib aan sameyno waa yara culus tahay waxaan sameynaynaa waxaa jiro linki duplicate oo la isticmaalo linkigaas qof walba insha Allah wala wadaagi doonaa ama groupka idin soo dhigaya haddii Ilaahay yiraahdo linkigaas ku soo dhufanaysaa duplicatekiisa qaadanaysaa kadib ayuu insha Allah inta noo wada imaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo linkiga haddii aan tagno linkiga waa kana telegramka haddaan idin share gareeyo telegramka waxaan filayaa in aragtaan walaalo badan ayaa groupka ka soo codsaday almost waa codanta aan qaadnay 50 qof way gaartay 50 qof haddii ay ka faa'iidaan almost 48 qof 50 qof haddii ka faa'iidaan waa okay ma sha Allah waaye marka waxaan sameynaynaa linkiga ku dhufanaynaa linkiga waa kaasa linkigaas aan ku dhufanaynaa wuu noo furi doonaa screen kale aan sii share gareeyo
وكنا ونوكيني حنفلها أنا سكرين كأسنا سيف عن وأركتان وورك سبيس كان وكنا وورك سبيس قرح بدن واي أو ديارسن قف كست مجيء سور كيس أو يحس دن وقشن دونا هالكاس علامة داس علامة داس إن شاء الله استعمال دبليكيت ماشي كقرنته وعلامة داس أن دبليكيت كاس أكون فن دون دادو إلى هذا duplicate kaas aa ku dhufanaysaa calaamada duplicate ka ku dhufanay kadib uu ku geynaa wuxuu ku geynaa abkii uu ku dhex geynaa waa aragtaan abkii waxaan ku dhex jirnaa engineer ay ku qorneed kii hadda eberka ahaa waaye duplicate kan taawanay kadib toos uu noogu keenay markii halkan aan joogno haddii aan share gareeno notionka waa aragtaan aan filayaa hal mid haddaan idinku celiyo markii linkiga aad ku soo dhufatid waxaa iska hubeysaa in duplicate-ka aad mararka qaar duplicate adoo dhihin waxaa la rabaa markaad duplicate-ka taabatid ina aad gmail-ka oo kugu save garaysan notionka abka aad soo gelisay inaad la soo kicisid hal mar haddaan ku celino duplicate-ka markaad saas u taabatid waxay khadka yaro culus dul qaadano marka duplicate-ka aad ku dhufatid oo kuu soo saaro oo aad aragtid wejigan markaa aragtid meeshaas ma aragtaa ay ku qoran tahay engineer waa macnaha gmail-ki aan ku isticmaalayo notionka aan soo gashto waa gmail-ka notionka oo igu xiran yahay kuwa markaa notionka soo dejiyey markaan soo dejiyey dan share dhaho notionka markaan soo dejiyey meeshaas kore waxaan dhahay create work account ma aragtaa kadib gmail-kaaga halkaas gelinaysaa meeshaasaa gmail-kaaga geline gmail-ka markaa gelisid oo dhammaystiran continue aa leedahay wuxuu kugu diraa linki wuxuu kugu diraa gmail-ka linki uu kugu diraa kasoo gale notionka marka halkaas uu kusoo qabto magacaaga kadib waa duplicate leedahay duplicate-ka hadda qaabkan nitusay oo kalaa leedahay duplicate-ka markaa taabatid uu facekan ku keeno kadib aa kasii dooranaya halkaasaa ku dhufanaya maaragtaan uu save gareynaya markuu save gareeyo kadib notionkaaga asoo ku jiro nadiif u tegaysaa haddaan tagno marka notionkeena si aan hawsha meesha uga sii wadno notion workspace waa kana waa aragtaan laba mar aan ku celcelinay soo ma aragtaan waa kaasaa marka labaadna waa kana mid ka mid a iska tir hal mid aa kugu filan marka waa kana workspace qurux badan oo magacaagi iyo waxaaga meesha wax dhan meesha gashanaysaa haddaan hadda magacoo kaleeto bedelno si aad u aragtaan wadani fx haddaan inta ku qorno wadani fx inta sawirkaagaas waxaa saaranaysaa emojigaa jeceshahay haddaa aragtid sawirka calankaa saaranaysaa waddankaaga haddaa aragtid waxaa jeceshahay oo adiga hobigaagaa saaranaysaa haddii halkan aan noo saaro calankeena quruxda badan ee Soomaaliya sidoo anigaba ii yahay waa kaasaa calankeena meeshaas noo saarmay maasha Allah inta kofarkan waa iska bedeli kartaa haddaan kofarkaasna iska bedelno hawsha asaga aan ka bilaabnaba haddaa hadduu gallerigaaga ku yaalo sawir gallerigaaga tegaysaa tartiib sawir allaala sawirkaa jeceshahay sawirkaaga magacaaga waxaa aragtidaa saaranaysaa
كانوا كلا دان صارنو تصال أهان معنا صورك وصار ميا علامة داس وصورك كجي جي ذكرتها صورك مش كواد سنكرتها علامة داس مش أسكسو مقنيس علامة داس أسكسو مقنيسو حسمين صورك وكتوس السنة وكذا وحكوا ورن reposition position ka saxina magac marka kor u jiro aragteen waan toosina marka magac halkaas aan dhigana hadana iga laabto soo qabanaa halkaas aan dhigaa u istaaga magac waa aragtaan hadaa hore u sii socono meeshan waxay noo tahay trading waxyaabaha trading ku saabsan oo dhan inta meeshan aad gashanaysaa dartid halkaas aad gashanaysaa inta waxa ka dhiganaysaa gooliskaaga waxa goolis aad leedahay inta gool gashanaysaa waxyaabaha aad rabtid inaad samaysid sanadkan bilahan soo socdo wixii ku suurto galay samaysay ayagana inta list ya samaysanaysaa waa ku taxanaysaa inta ani waxay ii tahay ma trading plan kan waxay ii tahay buugaagta aan akhriyo kaleeta ay ugu jiraan waxaan dhameeyay iyo waxa ii socdaan intoo kale waxa ka dhiganaysaa my books aan leedahay kan waa iska tireena inta marka waxaan isticmaalaynaa inay noo samaysmaan number isku xigo waxa taabanaysaa calaamadaas meesha ku sawiran bagoodka calaamadaas taabane waxa toggle listigaas soo dooranay toggle listiga muxuu yahay toggle listiga wuxuu noo fududeynayaa in wax badan ee hoostiisa soo taxmaan hal mar aan ayaga dhan wada xirno hadana hal mar ay furmaan marka toggle listiga marka dooratid waxa ka si toggle listiga furaysaa waxa ka si dhex dooranaysaa calaamadii hadana taabanaysaa list to do list ya ka dooranaysaa maaragtaan ama bullet numbers ama number list noo door buug koowaad akhrinaysa maxaa waaye you can win oo kale iska leh you can win enter leedahay midka labaad eat that frog enter leedahay midka saddexaad ku raaxayso noloshaada waagta marka saan ugu taxdid laba calaamado yar furanaysa buugaan oo kale aan waan dhameeyay Soomaa waxaan leeyahay finish it aska leedahay ama daarta af Soomaaliya kan inaga dhiganaysa waan dhameeyay buugaan waan dhameeyay buugaan markasta oo wax samaysid waxa taabanaysaa control s si aad u save gareysid hadii taabanno waa saa ku save gareynaa laakiin ina control s ka taabto fiican marka toggle listigaad inta waxa ku qoranay book list buugaagta liiskooda camal hal mar aad taabanay wax dhan way xaroonayaan soo maaragtid haddana waa soo deysane haddaad rabtid waxaan kala raa ka dhiganay eedaasaa taabanaysaa kan waxaa leedahay yellow iga dhig kana haddana kana heelaad saaranaysaa intaan oo kale heelaad saaranaysaa eat that frog asaa automatically wuu soo baxaya waxaa leedahay kan waxaa dhigtaa bubble iga dhig aday kugu xirantaa saarta oo qurxsan kartaa haddaan halkaas kaas uga baxno aan galno weekly esa waa meesha la gashto waaye maxaan ku dhahay tradeda aad qaadatay kuwa ku guuleystay kuwa ku guul dareysatay sababta ugu guuleystay wax dhan meesha lagu qorto waaye marka meeshan oo kale gashid waxa kugu qoran Q1 ka maqan Q1 haddaan haddaba sameeyno idinka hortiina aan ku sameeyo kan Q1 nooga dhig marka Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ka marka waxay u taagan tahay sanadkii waa 12 bilood 12 bil ayaa waxa loo qaybiyay 3 Q1 ka waa 3 bil sanadka ugu horeyso Q2 waa 3 bil sanadka ayagana 3 bil ay ku xigto ilaa bishii lixaad Q3 waa ilaa bishii sagaalaad Q4 gana waa ilaa bishii 12aad hadda almost waxa mareynaa Q4 marka Q1 iyo Q2 waa la soo dhaafay iska dhaaf dib ma laha Q4 aan ka bilaawno hawsha
Q4 aan ka bilaawno. tusaale ahaan kow markii aad soo geshid notionka linkigan Q2ga ugu horeeyo Q2ga ugu horeeyo Q2ga ugu horeeya ka bilaabayna right click leedahay duplicate meesha duplicate ku qoran taabanaysa kow markaad soo geshid wax dhan waa tiraysaa Q2ga bas aad dhaafsanaysaa duplicate leedahay uu ku soo mid kale uu ku koobiyeynaa haddana duplicate marka leedahay mid kale oo haddana ku soo koobiyeynaa nambarada ka asaxanaysa marka kan Q2 ku qoran tahay Q3 ka dhig kan Q2 ku qoran tahay asna Q4 ka dhigo sanadkii 12 bilood waa saas u dhameystireen marka maadaama hadda intaan saddexdan aan soo dhaafnay oo hadda aan mareyno 3 bilood sanadka ugu dambeysay 4 bilood sanadka ugu dambeysay bishaan xataa waxa iskaga darsanaynaa Q4 si macnaha uu noogu qurux badnaado sanadka dambe marka hadduu Ilaahay na gaarsiiyo sidii saxda ahayd Q walba 3 bil ayaa gelin doonta hadduu Ilaahay yiraahdo halkaas aan soo fureynaa meesha toolka meeshaas calaamadaas yarta ah ayaan fureynaa waxa noogu dhex jiro hal bil bas ku jiro hal bil kaliya ku jirto halka bil ayada ayaan koobiyeysanayna horta hadaan gudaheeda furno waxa ku jiro meelihii la gelin lahaa trade-yada wixii oo dhan ayadana waa gaari doonaa insha Allah horta ayada aan halkan bil aan sii koobiyeysano markasta adiga waxa dhehaysaa on right click duplicate hal mar aan magaca wada sixi doonaa insha Allah haddana right click kala leedahay duplicate ilaan 4 bil aan laga rabaa Soomaa right click haddana leedahay duplicate marka waxaan ka bilaabeynaa bisha hadda aan ku jirno bisha 9aad September marka calaamadii haddana taabanaynaa si aan bishii wixii ugu soo qorano waxaan raadinaynaa toggle list meesha ku qoran tahay toggle listiga okay aan leenahay kadib aan hoostiisa sii furnaynaa toggle listiga waxa ku qoraynaa September ilaa waa bisha hadda aan ku jirno waxaan isku waafaqnay inaan ku darno 4 bil soo socoto si sanadka dambe aan si toos ah Q walba 3 bil aan u gelino September marka halkaas ku qorno September waxaan soo dhex gelinaynaa marka bilaha 4 isbuuc hadda waxaan ku dhex jirnaa September ku dhex jirnaa September marka meeqa isbuuc aan ka rabnaa bishaas waa 4 week almost hadda hal week una dhaafay week iyo weekana aan ku jirno 2 week 4 week oo kale taan sameeynaa waxaan leenahay duplicate ko waa copy amal copy paste isku yahay ma fahanteen waa copy paste amal isku yahay haddana mar labaad aan duplicate leenahay inta waxaan ka rabnaa inaan ka helno 5 khaanadood kuwan dhan aan naga tiro si aanan macnaha ugu mashquulin ayagana bilahooda markii la gaaraan sameyn doonaa insha Allah si tartiib ah u wada cashirka si ay ugu ceshtaan mar afaraad duplicate leenahay mar shanaad haddaan duplicate leenahay marka shanaad waxaan ka dabacsanahay anaa idin sheegi doono weeki waa 4 bishii waa 4 week midka u dambeeyana waxa waaye waxa la geliyaa message trades waxa la dhaho trade-yada aad diyaarsatay ood ka mashquushay oodan qaadanin sida kan maanta anigu dhacdo kaleeto ka CHF anoo ilaalinaya yara mashquulay hoola oo family hoolaan galay kadib way dhaafay trade kaas oo kaleeto waan diyaarsaday waxaan rabay inaan galo maadaama uu dhaafay uu ku dhaafay trade kan faraha ka qaad ma aha waa inaad journaling gareysaa si berrito aynu kugu dhicin arrinkan trade kan haddii aad qaadan lahayd uu faa'iidadaas inaad ka sameyn lahayd au macnaha amaankaaga u gelisid marka shantii waatana waxaan ka bilaabaynaa kaas rename meesha ku qoran tahay maaragtaa rename aad taabanaynaa si aan magac uga bedelno waxaan ku qoraynaa week 1 waa weeki koobaad kan labaad asna sidoo kaleeto rename aan taabanaynaa week 2 kan saddexaad sidoo kaleeto week 3 kan afraad sidoo kaleeto week 4 marka afartii week ee isbuuca waa kuwaasa
kadibna gudahoodan sii habeyn doonaa. Kan shanaad asna waxaan dhahnay waxaan ka dhigaynaa misi trades. si af Soomaaliyeeno reediyada la dhaafay. marka saas ka dhigatid dadka qaar waxay sameeyaan misi trade-kan oo ani bisha September oo dhan halkaas folder ugu talagalaa. kadib waxaan ka sii furtaa qaanado badan oo hoose isbuuc kasta qaanadiisaan geliyaa. laakiin dadka qaar waxay sameeyaan week kasta waxay u sameeyaan hal folder oo sidaan camal oo misi trade halkaas ay u dhigaan, week kale haddana mid kale u dhigaan. marka waxaas waa waqti badan ay rabtaa, laakiin intaan aan waxaan jeclahay inay idinku filan tahay. folderkan oo kaleeto halkan wuxuu leeyahay change icon, waxa hartaa ka dhigan kartaa nooca hartaa ka dhigan kartaa. kan oo kaleeto waxa saaran kartaa calaamadahaas saarane bisha ku xigta ayadana sidoo kale nooc kale ka sii dhigane. waxa gadaha habaysan karo wax weyn maaha, change icon ay leedahay calaamadahaas saarane. haddii oo gudaha ugu sii dhacdhacno hadda hal bilan saan ku habeenay, bil labaadaan ku dara labada bil ay kaleeto insha Allah idinka sameyn doono hoosna oo sii gali doonaa. bishan halkan aan iskaga xirno Q4 hadaa xirno wada xirmaan Soomaali. bishan hadaa halkan aan iskaga xirno waxaan bilaabeynaa haddana haduu Ilaahay yiraahdo bil kaleeto. bisha kale halka hal xaba ka soo koobiyeysanay, kana hal xaba ka soo koobiyeysanay, duplicate-dan hal xaba soo koobiyeysto. waxaan rabaa hoostaas inaan dhigo, waa soo qaadayaa hoostaas aan dhigayaa, maaragtay kaligiisa soo haray. kadib waxaan sameynayaa intaan taabanayaa toggle listigii aan raadinaa, calaamadii aan taabanaa toggle listigii aan soo dooranaa mar kale. waa kana toggle listigii aan doortay. bisha kale aan ku xigo aan ku qoraa October aan sii furaa. marka October markaan sii furo kanaan qaadaa, muuskaan qabanaa, kanaan qaadaa, waan dhex dhigaa. markaan dhex dhigo maxaa laga rabaa October hadda xiro way xirmaysaa soo maaragti. October hadda marka haddaan waxaan Q4 haddaan xiro soo maaragti wax dhan way xirmayaan. Q4 waxaa hoos imaanaya September, October, November iyo December. November sidoo kale tinta soo dhiganaysaa. kalna duplicate aan dhahno si hawshan ugu fududaato. haddana kan duplicate aan dhahno November iyo December saan u sameeyay, laakiin ma gelgelin doono insha Allah time-kan ugu yar idinka habaysan doono. inta waxa ku qoranay November gudihii aan noo sii dhiman inaan habeeno qaabkii loo gelinayo trade-yadii waxa dhan noo dhiman. intan waxa ku qoranay December. Q4 marka daa xirna fiiri Q4 maxaa hoos imaanayo 4 bil 3 bil loogu talagalay, laakiin bishaan waa iskaga darnay maadaama aan intaan dhan idin la socon idinka aan waa ii habaysiin ma sha Allah, laakiin idinka si macnaha 4 bil ka dhiganaysiin. Q4 hoos imaanayaan September waa noo habaysan tahay waxay dhan 4teeda week misi trade-keeda. hadda waxaan habeenaa October, November iyo December na idinkaan laga rabaa inaa habaysiin. waa wax fudud, waa idin tusi qaabka loo habeenayo. duplicate leen leeyahay 4 xabaan 5 xabaan duplicate dahana kadib magacyada ka bedelna haddana hoos aan u dhaadhacaa gudahan ka habeena wixii dhan way diyaarsiin. hadhowtu wixii aan screenshot qaatay aan gishana qoraalkan ku qoraa trade-kaas waxa aan ku qaatay kan asalkayga dhacay khaladka meeshu ku imaaday anaa faa'iido aan ka sameeyay meeshan ka galay meeshan ooga baxay. 4 xabo hadda mid shanaad aan ku dareynaa. copy paste inta dhileed hal mar duplicate leedahay wixii oo dhan wixii gudaha ku jira xogta xataa uu ku koobiyana. marka magacyada haddaan bedelno boosino rename aan tageynaa sidii kii hore camal leh. week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 waa kaas loo diyaarsan yahay. week 2 haddana diyaarinayna.
week 2 week 3 week 4 kan waxaan ku qornaynaa missing trades tradedan dhaafay wakaasa kalarkan waa iska bedelay maadaama ku hore asaarid kan waa iska bedelay waxaaba ka dhiganaya calaamadan ka dhigay 100% si macnaha kugu kala duunaadaan daarta hadana weekgan arkaysid kalarkiisa daarta si bedelay daarta kalarka week dhana bedelay waxa ka dhigay red ka dhigay weekgan dhan red ay ahaadaan leedahay bishan dhan red ay ahaadaan bisha dhan wada red ka dhiganaa si aanay u yihiin oo aragteen bil kasta kalar gooni ay leedahay macnaha waa iska qurux waa wax weyn ma waa qurux una kayst September waa kaasa haddana waxa ay habaysan October November iyo December waxooda idin dhisi dhex yaalaan idinka la rabaa inaa habaystaan marka kuwaas hadda marka waxaan ku laabaynaa September si macnaha haddana waxaan habayn doonaa week 1 kaas bisa habayna inta kaleeto qaabkii loo habaynay haddaan ku tuso wax fudud aad samaysan karo week 1 kan galnay week 1 markaan galnay maxaa noo yaalo beerkii magaciisi position qaabka u gashay sell ma u gashay mise buy stop loss ki date kala xabaa ka dhiman kan meesha ka gashay way interdate iyo kan waa interdate exit date ka maqan haddaan sameeynaa exit date ka haddaan sameeynaa hortiina ku sameeynaa hadii la yiraahdo inta waxa leedahay plus kidi waxa dooranaysaa date kan waxa ka dhiganaysaa date soo jiide kan kala agtiisa keenay magacaas oo iska tire waxa leedahay exit date waa trade-ka maalinka ka baxday interdate-ka oo maalinka gashay exit date-kana oo maalinka ka baxday waxa wax easy hadii oo aad fahamtid qaabka loo sameeyo kan dib asarkaas naga tirba meeshu naga weyneynaya kana noo soo yaree kana sidoo kale noo yaree kana xataa noo yaree marka waxaan u aragtaan haddii aan idin sharaxo kan waa beerkii lacagta gashay kan sell iyo buy inta u gashay stop loss ka ku gashay intuu la ekaa maalinkii gashay maalinkii ka baxday profit iyo loss wuxuu yahay profit hadduu yahay caadi aan numberka u gelinay hadduu loss yahayna meensa ka hormarinay kanna waa meesha ka qaadatay style risk intermediate mise reduces risk entry mise reducing risk entry ka qaadatay kan waa pattern ka ku qaadatay kan waa confirmation ki maxaa ku qaadatay confirmation muxuu ahaa multi touch mu ahaa retrace candle mu ahaa muxuu ahaa double top mu ahaa wuxuu ahaa ay sheegay kanna waxa waaye area ka qaadatay high probability area miya violet area miya poor area miya qaabka ay tahay trade-kii ma xirtay dhan waxa leedahay marka xirtid tigta saaraysa hadduu trade-ka furan yahay tig ma saaraysid trade-kan qaadanaysa trade plan-kaaga ma ku jiray oo inaad qaadatid ma analyze garaysatay oo adiga ma inaad qaadatay ma rabtay mise saaxiibka oo macnaha yaasir aragto trade-kan soo dhigay ama qaadanayo la qaadatay trade-ka haddii uu qof kale uu soo dhigay oo aad iska aragtay oo kula qurux badnaaday ha qaadanid trade plan-kaaga aanu ku jirin ha qaadanid si khasaaraha uu yaraado marka qaabkii loo gelgelinayay insha Allah haddana aan sameyn doonaa qaabkii loo gelgelinayay haddana sameynayna haddii Ilaahay yiraahdo marka inta magaca waxa loo qaabka inta magaca uu qoraysid waxa halkaas banaana click bas leedahay kadib magaca ku qoranaysaa JDB
JBY click على سومالك تو أركتان maxaa u galay sela u galay si JBY sobloskayga meequu ahaa JBYada sobloska iska yar 60 bib iska leh 60 bib u ahaa goormaan furay waxaan furay bisha ahayd September ige maanta ka soo qaadba tusaale ahaan waa waxaan adii tusaale ay ma goormaan xiray isla maanta xiray hadana 100 bib waan ka qabsaday waan iskaga baxay camal isla maanta xiray meeqa ka faa'iiday 100 bib 100 bib soo ma aragtiin halkaas hoose totalka oo waxa arkaysaa isbuucaas markaa wixii oo dhan gelisid minus iyo plus waxa dhan markaa gelisid meeshaas waxa ku soo baxayso total wixii faa'iido ah ku jirtid ama wixii khasaare ah ku jirtid dadka qaar inta waxay ka dhigtaan percent aan waxay tahay bibs ay tahay percent daartidna waa ka dhigan kartaa percent daartid waa ka dhigan kartaa waa qaab fudud meeshaas oo hadda uu ka yahay numberedka waxa ka dhiganaysaa percent bas percent halka u bedelinaysaa meeshaas oo hadda number anaga nooga yahay marka bibs waa 100 bib oo kale ka faa'iiday xagee ka qaatay risk intrigan ka soo qaato kaleeto waxa ku qaadatay baatanka waxa ahaa sell oo ahmo ascending journal weyn u sameeyay confirmation ku qaato wuxuu ahaa retrace candle 15 minute flag retrace candle ay sameysay double top joogtay retrace candle ay sameysay 15 minute flag ay sameysay 15 minute journal oo noo yahay meeshan aan bedelno flag aan ka dhigno calaamadaas yarta saddex xabale taabane qoraalka ku soo baxayo channelkaas ka tire flag ka dhigay bas waa wax aad easy ah 15 minute flag ku dhufanay marka lacagtan waa xirnay waa ka baxnay lacagtaas high probability area joogtay trading balankii ku jirtay hadii trading balanka ku jirtay tiga saaraysa marka lacagtan xogteedo dhameystiran waa taasa GBY sela u galay 60 bib selkayga ahaa maxaan qaatay 8 September aan ka baxay 100 bib aan ka faa'iiday risk intrigan ka soo qaatay ascending aan ku qaatay confirmation ku qaatay saddex nooc ahaa double top joogtay oo ascending lagu tagay retrace candle dhacay 15 minute flag hadan ka sii sugtay high probability area aan ka qaatay waa trade kaas waan ka baxay dhan waa xiran yahay hadda trading balankaygu ku jiray marka hadii aad qaadatay 5 trade oo kale maxaa sameynay waxa dheesaa bas GBY qabanay duplicate afar trade hadda meeshan ku taal Soomaaliya hadana duplicate leedahay isbuucan 5 trade qaad Soomaa 5 trade ba halkaas gashanaa waxaan qaatay GBY tan ka bedel ayadana waxaan qaato kale ka CHF waxaan qaatay euro GBY oo kaleeto waxaan idin sheegay waa tusaale wax hadda dhacaya ma aha euro GBY oo kala qaatay euro GBY oo sii jirtay waxaan kaloo qaatay ka GBY waxaan kaloo qaatay euro GBP shantaas trade aan qaatay shantii trade macnaha marka hadda calaamo waxaan waa bedelayo trade walba qaabka ku qaadatay waxa ku gashay meeshaas ka sheegay hadda soo ma aragtaan tusaalaha meeshan ku jiro oo total halkaas naga siinaya marka hadii kan uu minus ahaan lahaa waxaan dhihi lahaa euro GBP minus aan ku galay minus 30 bib SL-kayga dhacday wakaasa automatically uu kala jaraya wax dhan 279 bib wiigaas la baxday ku leeyahay markii wixii dhan aasaan u habeysatay oo qortay mid kale waxa idin kula talin lahaa inaad leedahay book trade-yada ku qoratid stop loss ka trade-ka qaatay stop loss-kiisa meesha ka gashay waxa soo dhan markii isbuucu uu dhamaado sabtidoo kale waxa ku fududaanayso inaad inta qoraalka hal mar wada qortid kadib aad sawirada soo gelisid sawirada jiro hadana qaabka loo soo gelinayo ayagan inaad tusaraba trade markii wix dhan aasaan xogta u dhameystirtid oo xogta aasaan u wada gelisid halkaas meesha open ku qoran tahay open page meesha taabanay marka muxuu siinaa xogtii oo dhameystiran trade-kan waxaan u qaatay sale aan u qaatay waqtigaas aan galay confirmation kaas aan ku qaatay wixii dhan aan soo gelinay xogtii oo dhan dhameystiran waatana inta comment-ga ku qoranay ma sha Allah trade-kan wuxuu ahaa trade cajiib ah
oo aan in badan sugaayay faa'iido fiican ayaan ka qabtay alxamdulillah commentigaas meesha gashanaysaa inta waxa waaye screenshotkii waa inta forecasting haddaa rabtid inaad gelisid inta macnaha tradeeka markaa forecasting gareynaysay oo qaabkii u analyze gareynaysay halkaasaa taabanaysaa calaamadii aan kuu sheegayaa saas u taabanaysaa kadib waxaa raadinaysaa inaad sawir soo gelisaa rabtaa sooma image waa kana sawirka naagtaas uu ka muuqdaa dhag ku siinay imageka obinaa leedahay waxaad tegaysaa meesha maxaan ku dhahay meesha uu ku yaal imageka waa soo dooranay obinaa dhehe imageki sidiisuu kusoo dhex dhigaa forecastingki waa halkaasaa ka xiraya marka waa iska xiraa daarti forecastinga hay tradekan waa qaadatay xaggee ka gashay waa aragtaan tradekan meeshaan oo kaleeto uu qof ka galay intaa tegay waxaa intrigaaga waxaa taabanaysaa meeshaas ay ku qoran right click leedahay replace meeshay ku qorantaa taabanaysaa si tradeekii adi aa qaadatay aa usoo gelisid marka waxaan rabaa inaa aragtaan qaabkaan usoo qaadanayo iyo qaabkaan u gelinayo waxaan tegaynaa insha allahu groupka aan noo share gareeyo hal mar haddaan noo share gareeyo groupka groupkaan tegaynaa kcjf waatana kcjf oo kalaan tusaale ku qaadanaynaa hadduu ilaa yidhahdo linkiga meeshaas linkiga ah haddaan qalinka idinku xariiqo linkiga meeshaas yaallo si sawirka aa qaadaysa uu nadiif kugu noqdo linkigaasaa click ku siinay allahuma salli calaa sayidina maxamed linkigaasaa click ku siinay linkiga markaan ku dhufano xaguuna geynaa haddaan sii share gareeno shaashada kaleeto uuna geynayo browserkaagu kuu furaa browserka markuu kuu furo meeshaan oo kale arkay hadda sawirkan waxaan filayaa si nadiif inaa u aragtaan oo wax walba aa ujeedaan sawirka markuu saan oo kale uu yahay waxaa taabanaya right click save as waa aragtaanaa umaynaa save as aa leedahay waa adoo sawir save gareynayo oo kaleeto camal save as markaa dhahid xaggee rabtaa inaa ku save gareysid desktopkii u save gareyaa leedahay am folder cusub aa furane waxaa leedahay journaling notion sen iskaga kaa dhex wareerinba notion this week اسبوع yahay shayga week 2 iska dheer week 2 aad u soconaa inta magac ku qoranaysa waxa leedahay lacagta maxay ahayd kcjf before kadib waxa dooranay folderka aad samaystay abina leedahay loo mara taabane kadib save leedahay save marka dhaysaas ma uga haray mararka qaar waxa laga yaabaa inuu ku save gareynin oo amoodin ku save gareey halkan hoose calaamadaas ka soo baxaysa waxa ka taabanaysaa keep waa i save garee macnaha waxaan rabaa inuu wax dambe qofna aad weydiinin oo kugu soo laabanin notion si dhameystiran adiga u samaystid keep markaan dhaho uu save garoobay haddii aan isla tagno meesha aan ku save gareeyay horta before to save gareeno Soomaa haddana aan after aan soo save gareeno sidoo kale waxaan tagaynaa groupkan ku laabanaynaa haddaan share gareeno groupkan ku laabanaynaa after kan aan ka dhigano hadda wali tradekan uu socdaa kan aan ka dhiganaynaa sidoo kale waxaan taabanaynaa meeshaas aan taabanaynaa linkiga aan ku dhufanaynaa linkiga markaan ku dhufano xaguuna geenayaa browserkeenu noo furayaa midkuu yahay Chrome iyo maxaan ku dhahaa Vesta midkii aad kuugu xiran waxaan filayaa inaad si fiican u aragtaan browserka markii uu noo furo noo geeyo right click aan leenahay save as aan leenahay desktopkan ku dhufanaynaa waxaan tegaynaa folderkii aan samaysanay folderkan muxuu ahaa journaling notion this week waa kana magacaan ka bedeleynaa kcjf before wana ugu jirta aftaan ka dhiganaynaa after kadib save aan leenahay calaamadii keeptan taabanaynaa hal mar haddaa intii idinku celiyo markaas save dhehaysid halkaas image all files ka dhigan bmg ka dhigo bmg waa sawirka ugu nadiifsan waa jpeg ka dhiganin bmg da ku ahaato haddaan hore u socono kana noo save gareeyay
waxaan tegaynaa marka desktopkeena aan fiirino inna loogu soo save gareeyo meeshii haddaan desktopka share gareeno desktopka waxaan filayaa inaa aragtaan waxaan raadinaynaa folderkii journaling this week ahaa waa kana waan furaynaa labadii lacag bay noogu jiraan aan soo save garaysan before iyo after tiba lacag kasta oo meesha aad gelinaysid forecastingkeeda waxeeda dhan meeshaas saasa usoo save gareyne waata haddaan fiirino waa sidii aan usoo save gareyne ayadoo weliba nadiif ah waxaan filaa videoga inuu dheeraan doono laakiin faa'iido ay idinku jirto waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaystaan walaalihiin la sii wadaagtaan channelka aad subscribe dhahdaan youtube-ka inaad subscribe gareysaan walaalihiin usii share gareysaan faa'iidada cilmiga waxaa fiican in la wadaago waxaan filayaa inaad aragtaan before ti waatana ayadoo nadiifa after tina waatana marka waxaan tegaynaa u laabanaynaa nooshinka si macnaha wixii noo dhinna aan u dhammaystirno haddaan noo share gareeyo nooshinkii nooshinka noo soo fur nooshinka aan noo share gareeyo waa kana nooshinka inaan joognaa hadda waxaan filayaa inaad si fiican u aragtaan allahumma salli ala sayyidina maxamed open meeshii aan intusayay open as a page kaasa ku dhufanaysaa kadib waxaad tegaysaa meelihii laga soo gelgelinaya marka haddaan soo gelinaynaa hadduu ilaah yiraahdo kan forecastingka baan soo gelino si aa u aragtaan haddaan waxaan leenahay right click replace choose as image waxaan tegaynaa marka folderkii noo samaysnaa oo isbuucaas aan ugu talagalnay kaasiya jafaatana before ta aan ka dhigano si macnaha waatana before ta waa soo gelinay waa forecastingkeeni inta waxaan soo gelinaynaa entryga markii uu trade-ka entryga uu ku furmay trade-ka markuu halkan dhal camal uu ku socdo aan entryga screenshot ka qaade hadda kan maan ka qaadin waan ka mashquulay kan le aan ku ceshino si tusaale uu noogu noqdo waa kaasa asna entrygeena halkaasaan trade ka galnay xageen ooga baxna marka exitka waa kana exitka ma aragtaan ma soo gelin kartid sawir hadda waayo nooma samaysnaba see u samaysanaynaa marka inuu naga maqnaado waa ficneed bitan si aa 10 uga dhigtid waxaan sameynaynaa calaamadii aan taabanaynaa asax xataa ku tusaayo type laba dhibic dhexdooda calaamadii kuu geliyay for command is ku dhaay calaamadaa taabane waxaan soo dooranay marka hore koodii aan sameynayno toggle list aan dooranay toggle list waxaan ku sameysanaynay bilihii iyo si u kala horeynayeen hadda waxaan dooranaynaa image waxaan rabnaa inaan sawir soo gelino image kaasaan ku dhufanaynaa waa aragtaan hadda wuu ogolaaday choose file u dhahay waxaan tegaynaa folderkii oo isbuucaas ahaa after taan taabanaynaa open aan leenahay waa kaas trade-kan halkaas aan ku soo gelinay waa kaas asoo nadiif ah وكاس تريد كاس 15 ريترز كان الكاس كقادني 15 minute فلا كاس كقادني ما شاء الله هالكاس أو بحنا ديك رتاب هذا أنت تريد كحرتي على مدى أو شورتي قاعد يقطع صوت دوينه يسا ماشى تريد كحرتي كيني على لا تصدق حسبي ما وقبح تريد كان بنا كان كاي أنتوا حكوا قري إسر كان حكوا قري تريد كاس وشي أكلو كلنتي محا قبت إيموشن هذا إيموشن تريد على هذا إيموشن أندري ما تريد كان أنا أقول بحلواتنا سدح بيب أنا كعب سنة هنا تريد كاس ويقول لابتو مادام معناها wax kasto oo trade kaas kala kulantay ku qoray maanta marka aad ku qortid waxaan ka cabsaday afeerkaas ku qortid oo cabsidaas birit waxa dhahay marka birit trader weyn noqotid oo wixii dhan ay ka gudubto waxa dib ugu laaban doonto macnaha waa wax xogtaadii oo dhameystiran oo meesha ku kaysan 10 sano kadib hadii ilaahay ku daayo gmail kaas aad gashitid xogtaada meesha ku jiri doontaa marka waxa leeyahay maalin hadda koorsaanaan sameeyay had koorsaanaan ahaa ما شاء الله اسبدل كاي حتى او كوغو دحاي waa ku dareemay waayo wixii wax ku kaydsan way laakiin marka waxna ku qorneen oo khasaari waxa ku gashay aad garneen trade-ka ay ku faa'iido sababta uu faa'iido aad garneen waa dhibaato waxa fiican marka qofku markasta inuu lahaado waxyaabo uu dib ugu laabto oo marjico ah marka waxa ugu dhanaa meesha ku qornay control s leeyahay control s marka dhahdid
halkaas uga bixi marka trade-ka hadda wixii dhan wuu ii diyaarsan yahay marka waxa laga rabaa beer walba beerkan fiiri hadda tan ka CHF ma laha wax ma ku jiraan wixii hore iskaga jiraan marka waa inaad saxid trade-ka maxaa u qaadatay baa inaad dhahayd baa hadda u qaadatay SL-kiis meequu ahaa SL-kiis 30 bib goormaa gashay waxaan galay 10kii goormaa ka baxday waxaan trade-kan waxaa hayay 4 bari 12 ka baxay waxaa loo bari halkaas oo ka baxay meeqa ka faa'iiday 150 200 bib xagee ka qaadatay reduce-kan ka qaadatay waxaan ku qaadatay descending ku qaadatay maxaa kale oo ahaa waxyaabaha halkaas calaamadaas yartay kansalka aas kaga saaray wixii hore inta meesha ku jiro kansalkaas taabanay marka maxaa ku qaadatay double bottom hay wuxuu sameeyay akineju sameeyay double bottom kale oo yirisu si sameeyay taas aan ku qaatay trade-kan muxuu ahaa high probability ma yahay wuxuu iska ahaa valid u ahaa valid area ka qaatay video waxa loo soo gaabiyay valid ma xirtaa waa xiray tiga saaraysa balankii uu ku jiray qof kale wuxuu ii soo diray ama qof kale waxaan ka qaatay maaha trade walba saasa sameeyay open leeda kadib waxa soo gelinaysa screenshot-kiisi replace taabanay screenshot-ka soo gelinay waa saasa ku qaad inta hadana furo exit-ka ma ilaha macnaha meeshii sawirka la gelinayo calaamadaadii taabanay asaad tusaale ku siinayo waxa uu ku haga hada aad wax akhrin kartid waxa ma ka khaldamayaan calaamadaada taabanay waxa soo dooranay sawirka uu saarayaan sawirka xataa wakaas asoo sawir saaran upload or link xataa waa soo gelin kartaa darti kadib sawirkaaga tagay meesha ku saarnaa tagay waa ku dhufsanay waxa leedahay open kadib si nadiif sawirka kugu soo galaa inta xogtii trade-kaas aad kala kulantaa qore hadaad waxba kala kulmin oo okay waxba aad kala kulmin ma sha Allah trade-kan waa saan rabi oo socda leedahay hadaa rabtid xogtan inaad qof la share gareysid halkaas aad taabanay calaamadaas yarta saddex saaxiibka oo kala leedahay isbuucan waxaan sameeyay ila arag calaamadaas aad taabanay calaamadaas aad taabanaysa waxa leedahay copy linkiga copy-sane waa tagaysaa meeshiisa oo u baas gareynay intara u leedahay notion-kiisu ugu furmaa notion uu taabana ugu furmaa waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen wax badan ka faa'iidi doontaan marka si tartiib ah ku celceshta wax weyn ma aha wax kasta waa saas wax walba loo geliyaa mise trades-ka hadaan wax yar aan sii taabto oo aan ayadana idinku daro wax ay ka duwan tahay malaha markaan oo kale haduu baaga saas oo kale uu kaaga diido waxa taabane weekly SR meesha ku qoranta korkaas meeshaas taabane weekly SR-ka wuxuu ku geenaa caadi page-kii hore ku geenaa weekly SR-ka hadaan taabano waa kaasa haddana waxaan sii taabanayna wadina FX xogteeni oo dhameystiran waa kuwana marka intii ku jiraan wixii maanta dhan aan qoraynay inta waxaa gashanay forecasting isbuuca markii axad oo kaleeto forecasting ayaa gashanay forecasting waa ku jiraan Soomaaliya week 1 waa kaas top 6 kaaga iyo wiil kaaga meesha gashanay sawirada waxaan waa sidii hadda leh sawirada saa hadda soo qaadeen ilaa soo qaaday waa diyaarsanay dhiiga ka soo qaadanay screenshot macna 4 hour 1 hour 15 minutes mid kaartid kadib sawirada soo gashanay euro USD oo kala hadda top 6 and wiil kaaga aan soo gashanay euro USD top 6 ka kamid ah isbuucan euro GBY san mid kasta sana u gelinay sawirada saas oo dhigay macnaha tan waxay ka saaciday inaad qaadanin trade aad analyze gareyn ama aad ishu ku heen top 6 ka aan ku jirin oo ruux kale ilaalinayo maxaa ka galay qaabka u rabtid aad sii gashanay trade-ka waa analyze gareynay waxa la rabaa trade level-keena inuu noqdo sida trade-rada waaweyn ee caalamka inaan iska dhicnaa rabnaa gaaladaas aan wax la qaybsano si aan kula qaybsan karnaa nidaamkii iyo sharcigii u degsanaa ayaga ay ku dhaqmaayeen waa inaan la qaadanaa waayo sharci nidaamka qof kasta nidaam u baahan yahay qof aan nidaam lahayn suuqan waxba kama keenayo haddaad discipline lahayn oo nidaam lahayn oo rabin mustaqbal dhab inaad gaartid macnaha suuqan waxba kuma lihid degdeg mal rabo waqtiyada oo trade aad suganaysid waxaana lagu mashquulaa waxaana la habaystaa waxyaabaha la isku aadistaa buugaagta cusub ee soo gadataa lagu darsadaa hadda buugaagta English ku dhibayaan kuwa Soomaaliya jiraan Soomaali English aan labadu waan isku akhristaa qof kasta asay ku xiran tahay marka qaanad kale inta ku taalo monthly review bishaas xogtaada see ahayd maxaa trade qaadatay maxaa SL kaaga dhacay maxaa faa'iiday totalka wixii oo dhan ayadoo qoraal ah ayadoo sawir ah waxa dhan meesha soo gashanaysa qaabka loo soo gashtan waa ku tusay kan ku xigo waa back testing
backtesting qaabka loo sameeyo insha Allah ayadana video aan ku soo sameyn doonaa dad badan way iga soo codsadeen ayadan waan soo sameyn doonaa backtesting kan inta la gelin doonaa hadii Ilaahay raado waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen salaadii cisha la joogaa insha Allah jamaacadana aadaan rabaa waa mahadsantihiin insha Allah soo dhawaada cashir walba oo ani idinku dhamaan waxaan rajeynayaa inaa idinka faa'iideen doono aan si aan macnaha guul u wada gaarno waxaan idin rajeynayaa guul la taaban karo inaad suuqan ka gaartaan qof walba wuxuu u baahan yahay discipline iyo inuu waqti isgeliyo naftaada hadda waqti gelisid ma ku khasaaraysid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. La sii wadaaga walaalihiin insha Allah.